العاشق محودرتا إدولي قيبتي ذي اللباد جعيلك أيا أود جبيي قلبك سلاقو وبوح دافيي هذا بحالدس أيو سعيد كغا فايديستي inta codkiisa hoos u dhigay oo uu laabta hoose ka hadlay ayuu Sulaaqo ka codsaday inay kaamirada soo gasho muuqaal lagu wada raaxaysto isla markiina dharkiina uu dhigtay Sulaaqo waxay dareentay inay qalad ku jirto waxayna iska xirtay kaamiradii iyada oo leh xabiibi tan waa qalad ma samayn karo ee inaga daa hadalkaas kuma uusan qancin ee uu ka adkaystay balse maalintaas Sulaaqo way diiday oo hadalkiisa ma aysan dhageysan markii uu ka qoostay ayuu telefoonkiisa dhaqso ah u jaray isagoo isxanaajinayo way ku celisay wuuna ku jaray wuxuuna u soo qoray mar dambe hay soo wicin Sulaaqo habeenkaas way iska seexatay oo waxay isleeyahay wuu xanaaqay biri caad ayuu noqon doonaa subaxdii markuu waagu bariyay ayay wacday sidii caadada ahayd balse kama uusan qaban markii xoogaa ku celcelisay ayuu wuxuu u soo qoray uuna ima jecelid beentaadina waan soo afjaray run ahaantii sida aan ku jeclahay haddii aad ii jeclaan lahayd waxaan kaa codsaday ima aadan diideen runtii qalbiga ayaad iga dhaawacday dhabarkana waad iga jebisay cadowgii aan kugu faani jirayna waad ii jebisay Sulaaqo intaas markii ay maqashay ayuu wadnuhu garaacmay naxdin darteed waxay isku dayday inay sabsabto balse wuu qaadan waayay hadalkeeda Sulaaqo waxay dareentay murug iyo cabsi waxay u maleysay in jaceylkeeda ka sii fogaanayo maalmo ayay is adkaysay balse ugu dambeyntii way adkaysan weyday waxayna u sameysay wixii uu ka codsaday si joogto ahna waxa looga raaxaystay video call haddaba gabadhii Sulaaqo ahayd ninkaas ayay si dhammaystiran iskugu dhiibtay waxayna ka duushay doontii xorriyadda wixii sidaas la ahaadaba maalintii dambe ayuu Sulaaqo u sheegay inuu soo socdo wuxuuna u sarbeebay inuu rabo nolosha inuu kula midoobo maalintaas Sulaaqo farxad ayay isla garan weyday waxay qalbigeeda gashatay xaflad qurux badan iyo aroos qiimo leh waxaad moodaa inay fiirinayso sawirada arooskeeda waxa uu sawiran iyada oo taajkii xiran oo garabkeeda uu taagan yahay ninkeeda Siciid oo u dhool cadeynaya waxay ka fakaraysaa talo maxad hadiyad ugu dhigaysa haddana qalbigeeda ayaa ku yiri aragtidaada ayaa wax walba uga weyn adiga hadii uu ku arko hadiyad uma baahna maalintii dambe ayuu soo degay isaga oo hadiyad qaali ah xambaarsan Sulaaqana iyada oo ubax gacanta ku sidata ayay golaankii ku sugaysay halkaas ayuu ka soo baxay Sulaaqana iyada oo dhool cadeynaysa ayay qaabishay xabiibi intuu yiri oo gacmaha soo fidiyay ayuu laabta galiyay Sulaaqo laabtaas diina markay gashay waxa qalbigeeda ku soo dhacay talo imisahban ayaa ka xigta xilliga aad halkaas ku seexan lahayd soo dhaweynteena ka bacdi Sulaaqo waxay u galbisay hotelka uu degi lahaa durba kama aysan iimaanay xoga ayay u sheekaysay jacaylka ay u qabtayeen uga sheekaysay iyo sida ay noqonayso hadii ay weydo isna sidoo kale wuxuu u sheegay sida uu u faraxsan yahay in uu la kulmo habeenkaas sidaas ayay kaga tagtay balse farxad darteed kama aysan seexan oo waxay ka fikiraysay kaarka invitation-ka cidii ay ka dalbi lahayd waxayna maskaxdeeda ku diyaarinaysay hablihii kala shaqayn lahaa arooskeeda Siciid wuxuu galay toddobaad mashquul ah Sulaaqana u sheegay inuu ku mashquulay asxaab iyo qarabo ay in muddo ah kala maqnaayeen balse xaqiiqda ayaa ahayd inuu maalmahaas la baashalay hablo kale oo ay xiriir lahaayeen laakiin Sulaaqo hadalkiisa way ku qanacday oo kama shakin wuxuuna ugu sheegay inuu salaanta soo dhameynayo si uu iyada farxad ula qaato Siciid toddobaad kadib ayay mar kale kulmeen Sulaaqo iyada oo uu qabo xiiso badan maalintaas iyada ayaa u tagtay hadafkeedana wuxuu ahaa inay dharka ka soo qaado si ay ugu dhaqdo wayna ka soo qaaday Sulaaqo waxay ka baqday in xaafadu ay fahmaan sida darteed waxay kaloo dhar ka soo qaaday wiil ay qaraba haayeen si ay ugu dhex darto isla markaana aan loo fahmin ujeedadeeda Sulaaqo waxay Siciid uga fakaraysaa dharkiisa iyo cuntadiisa sidii ninkeeda oo kale Sulaaqo dharkii ayay soo dhaqday waxay si dhuumaal ah ugu soo qaaday xil maqrib ah waxayna u timid isaga oo qolkiisa ku jira mahsanad qaali runtii qalbigayga ayaad hanatay ayuu ku yiri intaas kadib wuxuu galay sheeko hoose oo dareenkeeda kicinayo wax yar kadib inta gacanteeda qabsada ayuu laabtiisa ku seexiyay Sulaaqo xarkii ayay goosatay cod hoose oo raxmad leh dhunkasho naxariis xaada kicinaysa ayay dhaxda u gashay ogow shaydaankii ayaa dhex booday durbaba waa la isku dhigtay